رئيس الوزراء حمزة عبد برre ayaa maanta bedelay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Ninkan ayaa la bedelay xilli uu dalka ka socdo dagaalka xooggan ee lagu jiro kooxda Al-Shabaab. Wasiirka cusub ee gaashaandhigga ayaa hadda loo magacaabay Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo horey u ahaa wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalka, halka Jaamac loo magacaabay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda. ninka maanta loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah wasiirada ugu tayada xumaa taliska madaxweyne xasan sheekh maxamuud. hadda oo la geeyay wasaaradda ugu muhiimsaneed ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, rajo badan lagama filaayo, balse waxa uu dhawaan qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud tilaabo u muuqata inuu asaga la soo wareegay shaqada wasaaradda difaaca. halkan waxaan ku soo koobaynaa 3 qodobood oo la xiriirta sababta xilka loogu qaaday wasiirka difaaca Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac. diidmada Mareykanka. Jaamac waxa uu sanadkii u dambeeyay la kulmayay cadaadis dibadda ah sida aan warbixino hore halkan aan ku soo tabinay. ninkan waxaa diiday inay la shaqeeyaan Mareykanka, waxaana dhowr jeer dhacday in loo diiday kulamo u dhaxeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom. diidmada kaliya lama xiriirin raashinkii la boobay ee ciidanka danab ee waxay sidoo kale daarneyd arrimo amni sida ay ku waramayaan xubno ka tirsan dowladda federaalka. waa shaqayn la'aanta isagay taliyaha ciidanka xoogga. mid ka mid ah sababihi hadda kor loo bedelay taliyaha ciidanka xoogga Odawa Yuusuf Raage waa xiriir wasiir Jaamac dartiis kadib markii ay wada shaqayn waayeen. hadda markii la soo celiyay taliyaha Odawa waxaa shuruudo ku jirtay in Jaamac laga madax banaaneeyo, laakiin ma dhicin. halkaas ayuu khilaafkii ku soo laabtay. wada shaqayn xumada kala dhaxaysa taliyaha ciidanka xoogga waa qodob kale oo ka mid ah sababaha keenay in Jaamac laga qaado xilka wasaaradda gaashaandhigga. magacaabista Jihaan. dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay Jihaan Cabdullaahi Xasan la taliyaha arrimaha difaaca. gabadhan ayaa ilaa 2010 ka shaqeynaysa arrimaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa magacaabisteeda waxa ay abuurtay tuuna inuu madaxweynaha toos ula wareegay shaqadii wasaaradda gaashaandhigga. hadda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jibriil ma qaban doono shaqo rasmi ah oo aan ka helin inuu magaca wasaaradda ku aado kulamada gudaha iyo kuwa dibadda, balse shaqada rasmiga ee wasaaradda gaashaandhigga waxaa qaban doonto Jihaan la taliyaha difaaca qaranka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haddaba sidee u aragtaa adiga?